kooxda ama xisbiyada madasha qaran sameeysta in ay ilaaliyaan shuruucda dalka iyaga oo ku fikiraya inaynan iyagu dhibaato aynan isu keenin maxaa yeelay colaad dalkaani nin guul uga keena waa la waayay dawlad kasta waxay leedahay 4 sano 4 sano waxaa laga rabaa inay dhamaysato annaga waligeen waxaanu aan ilaalinaynay dawladnimada Soomaaliya siday u caga dhiga lahayd kuwi marka ku guuleystay inay hogaamiyaan ay u suurta gashay haddii waqtigu ka dhamaado waxaa laga rabaa inay ogaadaan markay talinayeen waa laga sugay waa la ixtiraamay waa waqtigoodii markay dhamaadeen doorasho looga guuleystay kadib xilka qofka kale uu helay hadda marka la eego waxa la maraa waa 3 sano oo qariib 1 sano iyo waxba hara ciidan sugi karin ee aan mataqaana ku marmarsoonaysa in sharciya la jabiyay sharciga hadii la jabiyo maxkamada loo dacwooda barlamaana lagu saxaa nidaamka dhexdiisa lagu saxaa laakiin qoray caaradiisan ku saxaa goorkan rabaan sidaan raba u hadlaa shalay markaan anigu jooga dadkan xirxiraay shalay markaan xilka haayay colaad dagaalan qaaday degmooyin iyo gobolaan aan weerar ku qaaday dad baan xiraay dad baa aniga madaxayga ku xiranoon hore u xiranoo wili xiran maantana ma ogi ee waa cusbahay shalasaan u shaqeeyay iyo sidaan u fikirayay iyo xadgudubka aan sameeyay waqtigii yaray aan ilaabay 3 sano banaanka joogay 6 sano banaanka joogay taas macaadallaahi wax la aqbali kara ama Soomaaliya ay dib u aqbalayso ma ahan waxaan leeyahay marka mar labaad iyo mar saddexaad nidaamka ilaaliya la fihiina utura ha isdhibaatayna ummadda dhibaataha u keenina waxa idin deeqo waa shuruucdo lagu dhaqmo iyo waqtigo la iska sugo iyaga intaasaan leeyahay waxaan ugu baaqaa mar saddexaad guddiga doorashooyinka qaranka tilaabta ku haboon oo xisbiyada ka saaran inay dhigeensadaan inay mataqaanaa wixii ay yiraahdeen rikoor gareeyaan inay u yeeraan inay warqad u qoraan inay shuruucda la tiigsadaan iyagaan ugu baaqaya maxaa yeelay dalaalaco dawlad waa lagu naqaway waxaan rabaan sameeyaa qof dawlad ku naqaysa ma jirto qof kasta waa inuu sharcigu ka sareeyo waa inuu baqaa waa inuu la fihiisa ilaashada asaynadan ugu jirta waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaa shalay iyo maanta iyo birito in la kala yaqaana loo baahan yahay shalay dagaaladii soo dhacay iyo dawladnimadii madaxtooyada fariisatay cid walba waa ogta waa la qaxa shala dagaalan ku guuleystay
waxaas wax lagu faano ama meesha yaallo ma aha sibil warki Soomaaliya ka dhacay dhibaatooyinkii laga shaqeeyay problemkii ummadda Soomaaliyeed ay soo martay taariikh ahaanay u yaalaan inaan dib ugu naqdama rabaano meel lagu faanana meeshaas kuma taalo qofkii inuu ku faana raba haddayba jirto ninkii nidaamka dawliga ahay keenay oo madaxtooyada fariisiyay ayaa ugu ron iidaasina maanta ummadda Soomaaliyeed inay qoomamaysay leedahay wax ay ku faanto Ilaahay waa ka rajayeynaa laakiin hadday ugu roontaa meeshaan marayno inaan halkaas ka sii wadan nin walba oo sidii uu shalay u fikiraya maskaxdiisa ka saaro sidaas loo baahan yahay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed kuwa idinkugu baaqaya dagaal kuwa xurriyad dagaal ma leh xurriyad haddii xabad lagu helayo annaga mar hore ku bilawn waana lagu waayay xurriyadu waxay rabtaa adkaysi dabacsanaan akhlaaq wanaagsan dulqaad ay u baahan tahay ciidan waa ku stop garayha jid waa laga xiraa gacantaada kuma goosan kartid kumana aarsan kartid waa inaad u adkaysataa waa inay mataqaanaa waa ciidan dib loo abuurayo ciidanka Soomaaliya inuu horumar gaarsiiyo ciidankaas marka waxa waaye waa in loo adkaystaa maxaa yeelay wixii shalay jiray waa la ogyahay argagixisadu waxay nala damacsantaa waa la ogyahay inta xanaaqo aan inta hub soo gato aan dib u curinaya fidna cusub cid laga yeelaa ma jirto mana laga aqbalayo Soomaaliyana dib u aqbalime shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay arrimahaas aan mar kale lagu dhakrin hora loogu baabi'iyay waa lagu nabad guuriyay waa lagu laayay kuwo magafaha u cararay iyo kuwo qaxooti naqday iyo kuwa mataqaanaa aad iyo aad dhibaato macluuleed ay ka soo gaartaa jira waxaa jira arday dagaal la geliyay waxaa jira maato la barakiciyay wax walba waa la soo maraa maanta waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto horumarka jira waqtiga doorashooyinkana waa inuu waqtigiisa ahaado cid haba yaraatee taas la weydiiyaa ma leh doorashadu waa ifaysa waa muuqataa xukuumadda hadda jirta waxay u gudbisa baarlamaanka gacanta ku haya xogeeyaha baarlamaanku wuxuu noo sheegay gudoomiyaha baarlamaanka la shaqeeya oo xafiiska guddoonka la shaqeeya bishan 12aad kal fadhigan hadda lagu jiro in sharciga doorashooyinka oo banaanka ay soo saarayaan ay sharciyeynayaan kadibna madaxweynuhu uu saxiixi doono sida awgeed marka in annagana loo kaga warramo oo waxaanan ogeynaan ognahay la yiraahdo idoo institutionskii xilka hayay ay hadlaayaan in dad kale oo nidaamkii aan ku dhex jirin ama aan mataqaanaa aan hadda hawshii aan u idmanayn inay noo warramaan macadallah iyo waa ka weynaa shacabka Soomaaliyeedna waa ka weeya sida darteed waxaan leeyahay cagta dhulka hal dhigo hal sugo doorashada soo socota cidii tartan rabta welcome waa qasab waa hele doorkii hore waa la tartamay kii ka horeeyay waa la tartamay haddana waa la tartamaa waxaan leeyahay markaan warkayga ku soo gabagabeeyaa shacabka Soomaaliyeedow nin Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ninku dilay harku ma jiido shacabka Soomaaliyeed ninkii u galaday
iyo ninkii dhib u geystay way la socdaan marka yaan mar kaleetood dagaal iyo colaad wuxuu leeyahay waa aragteene iyo mala awaal la soo minguuriye waa aragteene gacmaha isqabsada nidaamka dimuqraadiga u hoggaansama qof iyo codkiis u diyaar garooba iskana ilaaliya in mar kale laydin dhakro oo dan gaara laydinku gaaro oo laydinka faa'iideysto oo dhiiggiinna wax lagu raadsado iska ilaaliyaan leeyahay meel kastoo aad joogtiin aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu